ninku baa kugu soo beegmay wuxuu ku oranayaa maxaa la ma nin iigu yeedhid dadka qaar baa waxay u haystaan dumarka inayna taaban kareynin jirka kale haddii xitaa dhakhtarada kale dhinacii diinayaan han markay ka soo eegto waa caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha dhaqaatiirta ee ka shaqeeya dhulka Soomaaliya dumarka waxaa la sheegayaa in sanadahan dambe ay aad ugu soo badanayaan howlo ama shaqooyin badan oo aan hore loogu aqoon oo ka mid ah qaybaha caafimaadka gabadhan waa hooyo waana macalimad waxa ka dhigta jaamacad sidoo kalena waa dhakhtarad Dr. Maryam Cabdullaahi Daahir waxay ka howlgashaa ama shaqadeeda ugu badan ee ka qabataa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa stuudiyaha Nairobi ayay nagu soo booqatay waxay u warantay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh cudurada guud ayaan bartay 2010 baan jaamacad ka qalin jabiyay ima dadka neerfahan daweeya oo isbitaalka Hargeysa meeqa sanad hadda dadka daweynaysay oo xanuunadan guud dadka dhakhtar ugu ahay ilaa 2010 meelaha 6 sano imika marka wasaaradda caafimaadka hoos tagtay ee Soomaaliland wasaaradda caafimaadka ka tirsanay xanuunada ugu badan ee daweysa maxaa kamid ah Maryam markii hore intaanan neerfaha noqonin waxaan daweyn jiray cudurada guud oo dhan especially dumarka iyo caruurta inta badan markii dambe waxaan noqday waxaan ka shaqayn jiray qaybaha HIV-ga iyo cudurada la kala qaado sida TB-da 2 sano ugu dambeeyay waxaan toos ula shaqeeyaa dadka neerfaha markaynu dhahno waxa weeyaan stroke oo kale qalalka caruurta gariirka dhabar xanuunka waxaas oo dhan lugaho dadka baqtiya marka areadaasaan aad uga shaqeeya isbitaalka Hargeysa ka howlgashaa Soomaalida ma ku badan yahay cudurka neerfaha imika waxaynu oran karnaa caalamka kale marka la eego WHO waxa batay cudurada aan la kala qaadin yani cudurada ay sababto lifestyle-ka ama si qofku u nool yahay ha noqoto dhiikarka kale imika cudurka stroke oo kale waxa keena dhiikarkaasoo maskaxda ku qarxay xididadii marka waxa u badan yihiin waliba ragga marka stroke wuxuu ka yimaadaa dhiigii qofkii ku kacay marka labadii kuwii la kala qaaday iyo kuwii la kala qaadanba Soomaaliya imika dadka Soomaalida aad bay ugu badan yihiin Dr. Maryam gabar yar baa tahay muuqaal ahaan marka lagu arko siday ku arkaan ragga bukaanka ah ee aad daweyso ee isbitaalka kugu yimaada horta markii ugu horeysay anagu jaamacadda ka soo baxay dumar badan may ku jirin caafimaad waxay ku noqotay dadkii qof yar markii horena dadku qof weyn bay ka doonayeen qofka maxaa la yiraahdaa dhakhtarada ah ama qofka ninka dhakhtarka ah qof weyn baa loo maleeyaa markaan soo baxnay dadku waxay nagu oran jireen iigu yeedh dhakhtarka qayamaya ana dhakhtarada marka inaad adigu soo saarto dadkii la hadashood ku tiraado gabadhi way noqon kartaa dhakhtarad kadib dadkii ma way la soo qabsanayaan laakiin inta badan cudurada qaar aad bay ugu adagtay in dumar daweyso especially Soomaalida dhexdooda inaad eegto kale maxaa la inaad ku tiraado lugtanaan eegaya imka qofku markuu stroke hayo kale yani nin bukaan ku soo beegmay ninku baa kugu soo beegmay wuxuu ku oranayaa maxaa la ma nin iigu yeedhid marka cala aqal waxay u baahan yihiin imika laakiin ilaa maalintan soo baxay ilaa imika wax badan way isbedeleen laakiin still waxaynu u baahannahay dadkeena awareness inay gabadh ay qaban karto hawl ama rag ay u qaban karo waxaad soo qaaday in ragga bukaankay ku yimaada ee aad daweynayso qaarkooda ay diidaan in jirkooda aad taabato ama aad eegto maxaad ka samaysaa markay saa dhacdo saasoo kale markay dhacdo waxaan u yeedhaa qof ila shaqeeya ama maxaa la yidhahdaa dhakhtar ama dhakhtar kale nuu refer gareeyaan ku dhahdaa bal beeshinka because dadka qaar baa waxay u haystaan maxaa la yidhaahdaa dumarka inayna taaban kareynin jirka kale haddii xitaa dhakhtarada kale dhinacii diinayaan han markay ka soo eegto marka qofkaasoo kale markaad qancin weydo waxaad ugu yeedhaysaa dhakhtar kale aad baad u mahadsan tahay waa Maryam Cabdullaahi Daahir oo ah gabar dhakhtarad ah oo isbitaalka Hargeysa ka howlgasha